بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. halkaan waxaan ka salaamayaa walaalahayn ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. waa walaalkiin Maxamed Cali meel maag waxaan ka hadli lahaa arinta mushkiladda Soomaaliya ka taagan iyo dhibaatada faragelinta ummadaha Afrikaanka ee dalka Soomaaliya ku hayaan iyo talo aan u jeedin lahaa walaalahayn shabaab mujaahidiin inay iska bedelaan usluubka qaladka ay ku socdaan. waa dad dalkii lagu soo duulay mujaahidiin aan nahay difaacayo xaq aan u leenahay in waddankeena lagu soo dilaan istifaacno xarakad muqaawama laakiin istiraatiijiyada usluubka ka qaldan cadowgiya wuxuu ku soo wiray inaad adiga tahay cadow oo dhulkaagu ka xoreynaya marka adiga waxba ka qaldan 10 sano Amerikaan oo cadow cirka ka ugaarsanayo cadowga Afrikaanka calooshu shaqaystaha kontraat ku qaatay meesha marka waxba idinka qaldan dhulka waa idinka kasbaday ya quraanka diinta islaamka waa looga jihaadka wuxuu u baahan tahay istiraatiijiyo u baahan tahay dagaal inaad taqaan qisadii sayid قصدي عن حصوص قصدي خالد بن وليد رضي الله عنه جهاد لو دري صحابي كهريي او فري واي ميشا مدة دور بلود ku adkaato waxaan u maleynaa Abu Ubayd inuu ahaa marka Khalid bin Walid radiyallahu anhu dagaalyahan istiraatiijiyada qana dagaalka u ahaa markuu ninkan saxaabi ka horeeyay islaamka 10 mubashiriinta kamid oo qiimo badan wuxuu ku dhihi waayay booska galo si toos marka wuxuu ku taliyay Khalid bin Walid radiyallahu anhu in ay isbedelaan habka maanta uu asaga hayo bari oo saxaabiga kale si ay wax uga bedelaan kaartada dagaalkan waa nin ku xarfad dheer Khalid bin Walid radiyallahu anhu marka istiraatiijiyada oo isticmaalay Khalid bin Walid lagu furay meesh cadowga lagu jabiyay leeno nin dagaalyahan u ahaa marka istiraatiijiyada idinka qaldan shabaab mujaahidiin cadowgina waa soo baxayst oo argagixisada adduunka weyn Amerikaanka idinka cadowga idinku sheegay marka idinka waxaad ku qaldan tihiin habka la idinku jarribay oo la idinku qasbay inaad dagaal qarxis markay ku baaba'ay ummadda Soomaaliyeed oo tacbaan oo meeshii joogto dad dhahdin fatwada qaacida ay isticmaalayso ninkii gaalka la shaqeey waa gaal dadkan Soomaalida nafla caariga oo ay cunto raadiso dalkooda loogu yimid ya haddii meesha ku baaba'aan gaalad la shaqeysa ma aha xikmad ma aha dalkiisa loogu yimid marka ismiinayskaas waa qalad waa dambi idinka waxaad ku jawaabaysiin oo qiyaamo markii ayada quraanka ay qabsato وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت تاس idinka idin taala muudada dadka muslimka oo dhigeeda aad banaasateen taas waa istiraatiijiyad qaldanay ila taanig qadiyadiina waa xaq wadad ku soo duulaan leedihiin oo isdifaacina dalkeena loogu yimid laakiin istiraatiijiyada isticmaalaysiin isku difaacaysiina qaldan 100% inaad ummadda Soomaaliyeed u sheegtiin caalamka dagaalka islaami waa hadda muqt maxaad ku dagaalamaysaa adeeg ujeedada muxuu yahay haddaad leedahay waa aniga ilaa cadow cid shishay dhulkay joogto waan dagaalamahay waan iska bixinaya taas karaad ku leedahay laakiin wixii intaas ka fog waa inaad cadaysaa waxaad u dagaalamayso ujeedadaada ummadan kale Soomaaliyeed oo kula diin kula dada inaad هذا حق هذا ما هانيجا كليجيا ما ركت وحيجا منهج كيجان هي سوا قال ما أساس ما ذلك هو القول اللي كليجا ملهت ذاتك وإن طلع كالرعدة حق مقاومة واجر تعدوا وإن إسكسارو لكن أمدك لإنت قال الصادقة كليجا مسؤول إسكو شكتا وكو خلدنتين تاسيلت هاي مركا منهج كنا دب الراعة وحل إذا كان هيو ما هو الجر وحق باطلة تأذية كليه أي كقالة حق له معها وحاول استراتيجية قلدنا كنت قال والله تعالى أعلم.